halkan waa taalada dhagax tuur waxay ka mid tahay taalooyinka ku yaala magaalada Muqdisho ee u taagan xusuus iyo macno gooni ah qiimo weyn ay ugu fadhidaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed Maxamed Cabdi Yuusuf waa mas'uul xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii kala duwan ee dalka soo maray meeshan waa taaladii dhagax tuur muxuu ahaa dhagax tuur waa dagaal dhex maray Ingiriiska iyo leegadii waana meeshii awowga lagu dilay ana aabahay lagu dilay iyo saaxiibadoodii faraha badnaa halkan way ahaa meeshan shantii bishii Oktoobar 1949 halkan aad u jeedaan waxa ka dhacay dagaalkii loogu magac daray dhagax tuur oo u dhaxeeyay ciidamadii gumeystaha Talyaaniga iyo Ingiriiska oo isku dhinac iyo waliba shacabkii Soomaaliyeed oo dhagaxan ku dagaalamayay kuwa ay hogaaminayeen dhalinyaradii leegada lagu magacaabi jiray abeel ay Soomaali baa la yiraahdaa ayaa la yiraahdaa abtaarkaas la yiraahdaa leegadii meel walba dino isaga tib soo garanaysid dagaalkan dhagax tuur baa dhacay markaa 5 Oktoobar 49 soo garanaysid oo la leeyahay Talyaani ma rabno xurriyad baan rabnaa ma doonayno soo garanaysid Ingiriiski marka iyo Ingiriiski iyo Mareykanka iyo Talyaani rabeen inay soo celiyaan dagaalkaas dhacay dad badan ayaa lagu laayay ciidan ka badan rag lagu laayay aniga aabahay baa kamid ahaa Ingiriiska meeshaas dhisan oo shishada ay madaxfiil waxa uu leeyahay boobayaasha wiilkiisa Yuusuf ayaa dhinac socda waxay taaladan ku leedahay xusuus gaar ah oo saameyn ku yeelatay noloshiisa taalooyinkaas waxa loo dhisay dhagax tuur waxa loo dhisay dadka Soomaaliya dhagax tuuraya way nin shakhsi hebel loo dhisay ma jirto 37 qofood baa halkan la dhigay meeyda 100 iyo hodhoona waa lagu dhaawacay soo garamis dadka xusuustoodii baa loo sameeyay 70 sano ka hor waxa uu ku waayay aabihi Cabdi Yuusuf oo 500 kiiloomitir uga soo safray inuu ka qayb qaato dagaalkii dadka Soomaaliyeed xilligaasi ay la galeen cadawgii ku soo duulay dhulka Soomaaliyeed maalintii dagaalku dhacay way ka sheekeynaya aanu xardheeran jiray dugsi quraan baan ku jiraa dagaalkuna xabar buu ka dhacay soo garamis leegada xabar waxay taar u dirtay leegada hobyo oo la yiri intaas oo qofood ayaa la dilay adunku Cabdi Yuusuf baad ku leeyahay waa aabahay soo ma garan hobyo marka xardheera faras taarkii wada ayaa xardheera yimi xaruntii leegada marka la isugu yimi xardheere meeshii baa taarkii laga akhriyay ayayday aabahay dhasho galgalanaysa ark wiilal bay aabaha waa la dilay ayayday ooyaysan ark marka anna waa la ooy soo ma garan marka sidaas aniga xaaladda bartu kale ayay ahay dawladda Soomaaliya ayaa mas'uuliyad culus iska saartay sidii ay dib ugu soo celin lahayd taalooyinkii u taagnaa halgamayaashii u soo dhintay dalkan in dib loo soo nooleeyo taalooyinkii qaranka loo dhisay muddo hore laakiin dagaaladii sokeeyay ku burburtay dhibaato ka soo gaartay dalka kamid ah waa ku faraxsanahay waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa oo gartay in taariikhda ummadda soo celiyaan waa waajibaadkooda laakiin waa ku hambalyeynayna waana ku taageeraynaa talada waa dhaqanka Soomaaliyeed mariyay qabtay midna taariikhda laga sheekeynay waayo joogii hore waxa maskaxdooda ka buuxa taariikh mugle oo macno iyo miisaan gaar ah ugu fadhida bulshada Soomaaliyeed waana mid jilba jil u gudbinayo si aysan u lumin waa soo nooleyn la soo nooleeyay taariikhdii halganka ummadda Soomaaliyeed marka ummadda Soomaaliyeed waxa ku baaqaya inay aqliga u noqdaan dadka xorriyadda u dhinto qarannimada inay ilaaliyaan qabiilka iska ilaaliyaan khaasatan dhalinyarada ayaa laga rabaa inay la dagaalanto qabyaaladda waxa future-kooda la dilhayaa oo lagu cayaaraya oo la isku dirhaya waxa weeye ayaga way soo garbaysi ragga siyaasiyiinta oo ku shaqaysanay qabyaaladda iska dhiciya soo garbaysi isku kindirin walaalaadkii qabiil ma kala tiin qabiilkiinu waa Soomaali way